شغل الفاضل سائلة حكتاه وحي لا هي waxa aan gaclooday wiil aan isu shukaansanay aad ayaan ugu bagay isagu waa ii bagsan yahay reerkii ayaan u badhignay iyaguna waxba kama qabaan oo way soo dhaweeyeen cilad ayaa taagan ayay leedahay sheekuna faadil waxay leeyihiin waa in howl la kireeyo dad badan la waco aroos weyn oo sharaf leh oo ina boqor ah la dhiga ay leeyihiin sheekuna faadil ninkeygii aniguna arrinta iyada ma awoodno reerkii waa la xididay aniga waxaan rabo uu ii sameeyay wuxuuna diyaar u yahay leedahay sheekuna faadil in aan xataa gobol kale halmun u aadno ama aroos shahrul asal ah laakiin hooyaday ayaa diidan ayay tiri sheekuna faadil oo leh maadaama aad ina hebel tahay aniguna aan ku dhalay waa in hool la kireeyo oo wadamada dariska ah oo dhan la iskaga yimaado aroos kana uu noqdaa ayay leedahay aroos taariikhda gala maxaad nagula talinaysaa ayay ku leedahay sheekuna faadil falyatafadal mashkuuran wa maajuura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالى سكين بركة يا مركة كروبات خير ونكسن يوقيت ونكسن الله يدين كبده نورك إلا إعلاميو وضدكو أيو قادان قرابة يوقيت يدنس بع ووحس النقو ووحو ونكسوي إلا بس هذا اللقاء الشيغان يوحوي وعلى أولي كريم oo aan awoodooda lahaynin in dhalinyaro yar oo laga yaabo inay arday yihiin in lagu kalifaayay waa waxyaabaha keenay guurku inuu dib dhaco waa waxyaabaha keenay dhalinyarada guurka waxyaabaha kor istaago ayuu ka mid yahay waxaan doonayaa inaan hooyadaas ayada awaaniyo ilaahay dartiina u waaniyo diinteennu waa nasiixa النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم نبينا عليه الصلاة والسلام قال الدين هو الدين نصيحة وحرم هو يدك هو يكستوء الصومالية إلى كلمة أنا أركلين المهين سائل وشيره كلمة وحيتها هاي waxaan xaq u leedihiin caruurtiina inaad ku caawisaan wanaagga waxaan xaq u leedihiin caruurtiina iyo gabdhihiina inaad dhistaan waxaan xaq u leedihiin inaad gabdhihiina sharaftooda ilaalisaan laakiin xaq oo ma lihidiin inaad culays abuurtaan xaq oo ma lihidiina in la sameeyo hoolal aad u waaweyn oo munkaraad ay inay ka dhacaan ay suurtagal tahay israaf inaad samaysaan cunto badan intii la kariyo in bacmadow lagu sugo ayadoo fuqaradii masaakiintii ay ciidda iyo carrada ay cunayaan waxaan leeyahay marka doonaya inay waaniso inay gabadheeda ay waaniso hadal fiican iyo dardaaran wanaagsanna ay siiso laakiin waxaynan awoodi karin in lagu kalifaa ويجب حق أمرهن إلهي هو سبحانه وتعالى أرسل وين إلى نجيو إنت أصو حوراء يكب حيصو وإنت أصو فنانين اللي كينيو وإنت أصو برامبرا لصوكرينيو انتبنا الدعم ذو أرورينيو ووحيابها السببي إنه غيروه أي دربة دمان أولا ركينو ما أنت فلن يرضو إنت إسبور سلام بجربة إسفران wax kala ma ahane waa qaabka khariban ee marka lagu bilaabay guurka oo iyagu walba inay wax fududayso ay xaq u leedahay ee ha fududayso billahi tabaaraka wa taala gabadha iyo wiilka waxaan kula dardaarmayaa ayaga go'aankooda cid ka qaadi karta ma lahane inay yiraahdaan anagu sidan baan rabnaa waxaan doonaynaa gabadha haddaan inuu arooskaygu sidan u dhaco ayaan anigu doonayaa awoodda ay dhaqaalahana ma hayo in maanta intaas oo ummada intii la sugu yeero in cuntadana la wada daadiyo habeenkiina la mataqaanaa la baashaalo waxay baashaalka u yaqaanaan ayagoo ciyaarta macsida ah waxaa iiga wanaagsan anigoo meher yaroo mutawaadica intii la ii dhigo waxaan adiga hooyaa ku siin karana aan ku siiyo wixii kalena intaan aniga ninkayga gacanta isqabsano inaanu si fiican isu soo baranno oo aan meel tagno
oo ayaga labadannada aan si wanaagsan aan nolosha u soo qaadanno sidaa ka dhaadhici biidnillaahi tabaaraka wa tacaala hooyo walbana gabadheeda ilaahay ha uga baqdo aabbu wiilkeedana ilaahay ha uga baqdo subxaana wa tacaala waxaa cajiib ah hooyooyinka markii gabdhahoodu ay aroosayaanna wax intaasoo shuruud bay xidhaan markay wiilashooda aroosayaanna gacanta intay ceshadaan bay dhahaan maya intaasoo lacaga ma hayno wax lagu ciyaaro ma hayno waxaa la yaab leh wiilkiiyo gabadha talo maxaa kala duway oo maxaa kala sarraysiiyey wiilkiiyo gabadha labaduba adigaa dhalaye haddaad xoolo ku bixinaysana ku bixi oo ku caawi haddii aad israaf u diidayso wiilka marka wiilku gabadh guursanayana hade gabadhuna waa sida oo kale oo ku dheeraaday laakiin muhiim weeye su-aashan reerkaana waxaan leeyahay allaha isu kiin barakeeya biidnillaahi tabaaraka wa tacaala hooyadaana ka dhaadhici arooskaagu inuu noqdo aroos macquula oo dadkuna og yihiin israaf iyo xadgudub iyo xumaanna aan ku jirin ninkaagana aad jeceshahay inaad isku soo barataan meel aad si wanaagsan aad u soo degtaan wallahu aclam ما شاء الله جزاك الله خير شكرا الفاضل وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك شكرا الفاضل الله سبحانه وتعالى أولاد يرارها وحفظوا شكرا الفاضل الله سبحانه وتعالى هكو قدر جنة الفردوس شكرا